daawadayaal xil soo gaadhay hadaan idin soo gudbin jirnay taariikhda ciyaaryahanka maanta waxaan diiradda saari doonaa xidinka Sadio Mane waa mid kamid ah xirfadlayaasha ku xamaasha kubadda cagta. Mane waxa uu dheelaa kooxda Liverpool ee ka ciyaarta horyaalka Premier League Ingiriiska iyo xulka wadanka Afrika ee Senegal. Sadio Mane waxa uu dhashay taariikhdii markii ahayd 10 bishii 4 1992 waxaana ku dhashay magaalada Sindawu ee dalkiisa hooyo Senegal isagoo ku soo barbaaray xaafadda yar ee Mbali. Sadio Mane ayaa waxa uu ka soo jeedaa qoys danyar ah isagoo nolol adag ku soo qaatay caruurnimadiisii. Mane abi waxa uu iimaan ka ahaa mid kamid ah masaajidada magaalada Sindawu isagoo wiilkiisa la jeclaa inuu maro dariiqiisa oo kale. balse Sadio Mane ayaa isagu mar walba jeclaa ciyaarista kubadda cagta isagoo isku arkay inuu ka mid noqon karo xidigaha kubadda cagta Soomaaliya kuwooda ugu fiican. Mane ayaa hirgelinta riyadiisa waxa uu ka bilaabay ku ciyaarista wadooyinka agtooda isagoo iyo dhalinyarada la loodka isagoo mar walba waqtigiisa inta u badan ku ciyaari jiray kubadda cagta. intaasi kadib waxa uu ku biiray naadiga yar ee Academy Foot Generation oo ka dhisneyd wadankiisa. Sadio Mane waxa uu ku biiray naadiga Metz ee dalka Faransiiska markuu ahaa da'da 19 jirka. kulankiisii horeeyay ee uu ciyaaray naadigiisa cusub waxa uu la ciyaaray kulan ay naadigiisu la ciyaarayeen naadiga Bastey ee League 2 ka ciyaarta isagoo lagu bedelay xidiga Kevin Diaz daqiiqadii 17aad balse waxa uu ku daafurtay noloshiisa Metz guuldarro hal iyo eber. Mane intuu ciyaaray naadiga Metz wax koob ah kulamo guuleysan. Sadio Mane markay taariikhdu ahayd 14 bishii 1 2012 waxa uu ka tagay kooxdiisii hore isagoo ku biiray kooxda Radsburg ee ka jirta Austria. waxa uu Mane ka soo qaatay 2 xilli ciyaareed oo qurux badan. waxa uu dhaliyay 45 gool kadib 87 kulan oo u saftay. waxaanu ku guuleystay 2 koob oo kala ah Austrian Bundesliga iyo Austrian Cup-ka. Mane ayaa ka soo xidhxidhay kabaha naadiga Salzburg oo ahayd meeshii isku baray kooxo waaweyn oo ka jira Yurub. kowdii bishii 9 2014 Mane ayaa adduun lacageed oo gaadhay 11 euro ugu soo biiray naadiga Southampton oo ka ciyaaraysa horyaalka Premier League. Mane wuxuu saftay 75 kulan isagoo u dhaliyay 25 gool ay ku jirto saddexdeedii ugu dhaqsiya badneed ee laga dhaliyo horyaalka Premier League isagoo ka dhaliyay kulan ay Aston Villa kaga adkaadeen 6 gool iyo gool. taariikhdu markay 18 May 2015 waxaanay ku qaadatay 176 second ama 2 minute iyo 56 second. 28 June 2016 waxa uu ku soo biiray naadiga waqtigan u ciyaaray ee Liverpool adduun lacageed gaaraya 30 milyan oo euro isagoo waqtigaasi noqday Afrikaanka ugu qiimaha sareeya ee naadi iibsado. Sadio Mane waxa uu ku qaadanayaa kooxda Liverpool hab ciyaareedkiisii ugu fiicnaa xirfadiisa kubadda cagta isagoo sanadii hore wacdar ka dhigay koobka kooxaha qaaradda Yurub ee Champions League oo ay finalkii Real Madrid ka qaaday. Sadio Mane ayaa xilli ciyaareedkan 29 kulan oo Premier League ku soo dhaliyay 17 gool iyadoo loo arko mid kamid ah xidigaha ugu cadcad ee u tartamaya kabta dahabka ee gool dhalinta horyaalka Ingiriiska. goolal uu ka dhaliyay naadiga Bayern Munich ayaa Liverpool u saamaxday inay ka soo xaadiriyaan 8-damaadka tartanka kooxaha Yurub ee Champions League. tan iyo imaashiisa kooxda Liverpool Mane ayaa u saftay 112 kulan isagoo ku dhaliyay 3 gool kulamadaas. Sadio Mane ayaa dhanka xulkiisa hooyo u saftay 58 kulan isagoo ku soo dhaliyay 15 gool. markii uu horeeyay uu matalo xulkiisa waxay ahayd 2012. Mane ayaa lagu xasuustaa inuu khasaariyay gool kulaad ciyaaray la ciyaarayeen xulka Cameroon taasoo khasabtay in Senegal laga cirib tiro koobka qaramada Afrika. ciyaarta kadib Mane ayaa cadaawad kala kulmay Senegal badan oo ka xumaaday lumintii gool kulaadka ee Mane iyagoo qaar kamid ah ay weerar u geysteen gurigooda iyo qoyskooda hanti badanna laga dhacay. Sadio Mane ayaa xirfadiisa kubadda cagta ku soo dhaliyay 138 gool kadib 351 kulan oo u saftay kooxo iyo xulkiisaba. Sadio Mane ayaa dhawaan saxiixay heshiis ku sii hanaya Liverpool ilaa 2023 isagoo qaadanaya adduun lacageed oo gaaraya 150 euro. daawadayaasheeda qiimaha qaayay waliba qadarinta naga mudanow intaasi waxaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeena ciyaaree toddobaadkan. tan iyo intan ku kulmayno barnaamijkan mid lamid ah waa anigoo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo.